halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu muhiimsan. Qodobada ugu doorka roon wararka aan idiin haynana waxaa ka mid ah maxkamadda Mustafa Cagjar oo xukun 3 sano ah ku riday 2 muwaadin oo mas'uuliyiin hore ka soo maray deegaanka Soomaalida. mulkiilihii Qorraxay Media oo xabsiga loo taxaabay. Abiy Ahmed oo sheegay inuu albaabada u soo xirayo 30 safaaradood oo Itoobiya caalamka ku leedahay. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya, like saar fiidiyowga oo share dheh si aad ula wadaagto asxaabtaada. wixii tala bixin ahna xagga hoose noogu reeb. kusoo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwe Yusuf. maxkamadda Mustafa Cagjar ayaa maanta xukun aan sharciga meelna ka waafaqsanayn ku riday 2 muwaadin oo kala ah Sabaale Sayid Nuur iyo Cabdirays oo 2 bilood ka hor la soo xiray laguna eedeeyay kiis aan horay deegaankaba loogu arag oo ah argagixiso inay yihiin, taasoo dhalinyarada deegaanku been, qadaf iyo dulsaar ay ku tilmaantay. xukunka lagu riday 2 muwaadin waa min 3 sano oo aan la gadan karin. horay ugama dhicin deegaanka Soomaalida lagumana arag kiis argagixiso oo noocan ah cid loo haysto oo muwaadin ah. 2 muwaadin waa 2 muwaadin oo laga yaqaano dalka iyo deegaankaba oo aan marnaba dhinac uga bixin. weliba 2 muwaadin iska daa argagixiso meel ay argagixiso ku nooshahay xataa weligood ma aysan arag, sida ay ila xoggaalihiin oo xaqiijiyeen. xilal waaweyn ayayna ka soo mareen deegaanka xilliyo kala duwan. waxaa xaqiiqo ah in hay-addii garsoorka ee deegaanku ku jirto gacanta hal shaqsi oo Mustafa Cagjar ah, sida uu doonana uu ugu talinayo, taasoo nasiib darro weyn iyo cadaalad darro ku ah shacabweynaha deegaanka in wixii shalay laga cabanayay kuwii ka cabanayay ay shacabka maanta kula kacaan. waana taas sababta aan maxkamadaha u leenahay Mustafa Cagjar gacantiisa ayay ku jiraan. haddaba waxaan eheladii dhalay wiilashan iyo beeraha ay ka soo jeedaanba ku wargelinaynaa inay ka dhiibiyaan qadafka ingeysaarka ah ee lagu xukumay 2 muwaadin, iyadoo ay weliba markhaatiyaashii loo samaystay ee gacan ku-ridiska ahaa ay diideen inay markhaati been ah ku furaan. wax caddayn dembi ahna lagu waayay, balse amar Mustafa Cagjar oo keli ah lagu xukumay. dhalinyarada deegaanku ha ka damqadaan arrintan, haddii kale berri baa idinka dembiye aydan lahayn la idiin xidhi, la idinkuna xukumi, cid idiin hadlina aysan jirin. haddii aydan maanta ka dhidhiin falkan cadaalad darrada ah ee Mustafa Cagjar sida tooska ah ugula kacayo muwaadiniinta deegaanka. gaar ahaan waxaan ku wargelinaynaa beelaha Cawliyahan iyo reer Cabdille Mustafa Cagjar inuu gumaad iyo xadhig idiin geysan horay buu u ballan qaaday. haddii aad ka dhiidhiyi weydaanna maalin walba wiilashiina ayaa laydinku horbahdili, laydinkuna hor xukumi, iyaga oo lagu tilmaamayo inay argagixiso iyo al-shabaab yihiin. halgamaa Maxamed Ibraahim Mursal oo ah xubin golaha dhexe ee Jimhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeen ka tirsan, ahna la taliyaha guud ee gudoomiyaha Jimhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeen, ahna mulkiilaha wakaaladda wararka ee Qorraxay Media, ayaa xabsi ku yaala magaalada Jigjiga loo taxaabay. waxaana xadhigga Maxamed Ibraahim amar ku bixiyey in la xidho komishineerka booliska dowladda deegaanka Soomaalida Maxamed Yare oo amar ka haysta kusmaha deegaanka ee Mustafa Cagjar. waxaa la sheegayaa in loo xidhay sabab la xidhiidha qoraal uu
Mustafa Cagjar ku dhaliilay oo uu ardayga bartiisa bulshada ee Facebook soo dhigay. Dadka qaar ayaa noo sheegay in loo xiray inuu jawaab ka bixiyay codka laga duubay gudoomiyaha jamhadda wadaniga xoreynta Ogaden Cabdiraxmaan Mahdi Maadey oo uu ku sheegay in xukuumadda Mustafa Cagjar wax kale ka raadinayso jamhadda ONLF. iyadoo codka laga duubay Maadey uusan wax naxli lahayn, balse Mustafa rabay inuu qabiilo caysiyo. Maadeyse uu yahay nin taxadar badan oo aan farahaas gelin. Isku soo wada duubo jamhadda wadaniga xoreynta Ogaden iyada halkaas isdhigtay in mas'uuliyiintoodii sarsare maalin walba la xiro, la caburiyo, la kala jabiyo, waxaana lagu arkay ficil la'aantooda. dhanka kale waxaa xiran 90 ka mid ah ciidankii liyu booliska ee maalinka dhaweyd ka soo goostay galbeedka gobolka City kadib markay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka bahdilka, gaasada, oonka, arxan-darrada iyo saad la'aanta ee haysatay, lana rabay inay sidaas kusii joogaan goobahaas, balse intay ka dhiibiyeen yar soo galay kadibna intuu hubkii Maxamed Xaaji Tuur ka dhigay uu 7 habeen biyo ku dharbinayay bannaanada iyadoo dhaxan fara badani ay jirto, welina sidii ay ku jiraan, haddana loo gudbiyey xabsiga magaalada Jigjiga. Abiy Ahmed oo ka hadlayay talfadhigii degdega ahaa ee golaha baarlamaanka dalka Itoobiya uu maanta yeeshay ayaa sheegay inuu 30 safaaradood oo ku yaala 30 wadan uu albaabada u soo xidhayo, wuxuuna sheegay inaysan u haynin wax dhaqaale ah oo ay ku bixiyaan, weliba aysan wax waxtar ah u lahayn dalka Itoobiya haba yaraatee. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo khudbad ka horjeedinaya baarlamaanka dalka ayaa cadeeyay inaan loo baahnayn safaaro iyo qunsuliyado sanad walba lagu bixiyo malaayiin dollar oo aysan Itoobiya awoodin waqti xaadirkan. Itoobiya ayaa u muuqata mid dhaqaale la'aan xooggan ay haleeshay kadib markii ay wadamada reer galbeedku ka jabteen dhaqaale badan oo ay ku taageeri jireen iyo weliba dayntii iyo daaqliiba. dhanka kale hadalkan ayaa kusoo beegmaya waqti uu sii xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Itoobiya kala dhexeeya wadamada caalamka, iyadoo ay xusid mudan tahay inuu Abiy kulankan ka sheegay in dhaqaalaha wadanku uu sanadkan kordhay 6%, sanadkii horena uu kordhay 12%, marka la isku darana 2 sano gudahood uu dhaqaalaha dalku kordhay 18%, taasoo aan waxba ka jirin, balse uu ku beerlaxawsanayo baarlamaanka iyo shacabweynaha dalka oo uu isleeyahay caqli xumadiisa way aaminayaan iyagoo xaqiiqada dhabtaa og oo uu wadanku dhaqaale burbur, dagaalo sokeeye, dembiyo dagaal, baraka gude iyo dibadba ah intaba uu galay, weliba ay u dheerayd in daaqdii iyo dayntiiba laga joojiyey Itoobiya iyo caawimadihii kale, wax dakhli ahna aysan soo saaranin haba yaraatee oo lagu jiray COVID-19. haddaba hadallada Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa u eg kuwa uusan ka fiirsanin oo marba marka ka dambaysa iska hor imanaya.